gudoomiye dhamaan waa dhalinyaradii Yaaqshiid oo gudoomiyaha u ahayd iyo gudoomiyaha dhalinyarada kula fadhiyo Yaaqshiid inta badan waxa lagu xantaa waxay tahay mobile bajaaj lagu dhacay oo inta badan ku dhex wareega degmooyinka waxay ku dhex wareegan inkastoo degmada kaligeed ay degmooyinka ka jiraan si yaani u soo report gareeyaan baasha qaaday cid si ahaayeen warbixintaas kadib adigana maxaad ma soo qabataan arintaas reportkooda Yaaqshiid waa degmo ka kooban tahay 6 waaxood 6 waaxood wax kasta waxaan ka keenay dhalinyaro oo kalaangal xoogan u leh arrimaha dhalinyarada waxaan maanta nasiib u yeelanay inaan helno gudoomiyaha dhalinyarada degmada Yaaqshiid waxaan nasiib u yeelanay inaan helno gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee maamulka dhamaantood waxay maanta ka soo qayb galeen ay wax isku weydiiyeen munaasabadii barnaamijka ahaa oo hadal si furan waan ku faraxsanahay maanta inaan arko dhalinyaro muuqaalkan iyo aragtidan kala duwan ee ka timid degmada Yaaqshiid oo muujinaya dareenka iyo waxyaabaha dhalinyarada ee qalbigooda iyo niyadooda ku jira inay u soo bandhigaan maanta gudoomiyaha degmada xaqiiqdii natiijada maanta waxa ka dheehan kartaa muuqaalka ay u fadhiyeen dhalinyarada iyo su'aalahaasi u weydiinayeen iyo gudoomiyahaasi ugu jawaabayay su'aalaha qaarkood xataa waxa cadaatay gudoomiyaha fikiro iyo waxyaabo badan oo ku saabsan amniga deegaanka inay u soo gudbiyaan gudoomiyaha oo ka faa'iido waxa kamid ahaa inay ka codsadeen arinta ku saabsan in la helo maadaama haddaan wax la kulanno emergency call ama number aan soo wici karno si aan degmada iyo maamulkii aan ugu kaashano inaan wax wada qaban karno waxna isdhaafsan karno horumarka deegaanka ka shaqeyn karno amnigana horumarin karno waxaan ku bogaadinayaa maanta dhalinyarada degmada Yaaqshiid wanaaga iyo waxa laabta ku jira ay muujiyeen waan ugu mahadnaqayaa waan ugu bogaadinayaa waxaana ku xoojin doonaa dalada ahaan gudoomiyaha ka ahay iyo memberkeeda in howlaha noocaan ay sii wadaan ayagana ka bilaabi doono degmadana aan kala shaqeyn doono dhanka amniga dhanka waxbarashada dhanka horumarinta iyo isfahamka maamulkooda iyo dhalinyaradooda Yaaqshiid aad u mahadsanyihiin